Assalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada channelka. Halkan waxaynu kaga hadli doonaa koorso gaaban aynu ku sharxi doono wax loo yaqaano IoT ama Internet of Things. Tobanaankii sano u dambeysay waxaa soo ifbaxayay ama dunidu waxay attention ku haysay Internet of Things, waxyaabaa loo yaqaano IoT, kuwaasoo ku lug leh in shay oo physical device lagu xiri karo internetka sida mashiinada, shayaasha ismaamulaan, roboticska iyo waxyaabahaas oo kale, kuwaasoo yacni awood u leh inay internetka ku xirmaan, yacni dareemaan sensor inay dareemaan. Halkan waxaan kaga hadli doonaa taariikhdii IoT. IoT markii ugu horreysay uu soo ifbaxa waxay ahayd markuu soo baxayay internet connectivity la helayay 1980 bilowgoodii. Markii ay soo ifbaxeen Wi-Fi iyo Bluetooth, kuwaasoo suuro geliyey in laba shay isku xirmaan, yacni laba shay inay communication samayn karaan. So this PC and this PC without connection, wired connection isu jirin in laba shay yacni communication ay samayn karaan. Marka IoT first stage ee soo martay waxay ahayd RFDI. RFDI waxa waaye waa radio frequency identification. laba shay yacni laba IoT device inay yacni radio communication ay ku samayn karaan ayagoon yacni u baahnayn yacni wax fiilo ah, ayadoo isticmaalayaan radio waves. waatana taariikhda markii ugu horreysay, yacni markii ugu horreysay 1800 ayaa waxaa la sameeyey telegraph ama yacni laba shay inay xiriiri karaan. yacni qarnigii 19aad halfkiisana waxaa la sameeyey M2M. M2M waxa waaye laba shay inay yacni peer to peer connection wax loo yaqaano, ilaa ay soo gaartay 1990yadii. 1999kii ayay ahayd, ninkan ayaa Kevin Ashton ayaa sameeyey IoT ugu horreeyay, kaasoo loo isticmaalo industriyada ama yacni isaga wuxuu idlahay ganacsiga loo isticmaalaya. 2008 IoT numberska jiraan waxay noqdeen nambaro aad u badan, yacni wayna sii koreen world population. 2020kii waxay noqdeen IoT device-ka jiro 30 billion ay noqdeen. Now 2025 IoT waxaa lagu qiyaasaa device-ka jiraan 80 billion. IoT waxaa loo qeybiyaa 3 qaybood oo loo qeybiyaa, waa consumer IoT, enterprise IoT iyo industrial IoT. Consumer IoT waxa waaye waxyaabaha dadka personalka isticmaalaan sida wearable-ka ah iyo home applicationska, kuwaasoo data soo aruuriyo then datadaas yacni action ka sameynaya, saacada, smartwatch-ka, waxyaabaha health care-ska. Enterprise IoT isna waxa waaye waxaa lagu qeexaa physical things, yacni kuwaasoo businesska yacni shaqaalaha joogo yacni efficiency-ga businesska sida yacni logisticska iyo automatic truckska, yacni waxyaabaha soo degaya, waxyaabaha baxaya, yacni shipska imaanayaan ayaa waxaa loo yaqaanaa industrial IoT. Enterprise IoT industrialka isaga waxa waaye goobaha yacni waxyaabaha soo saara manufactureska sida yacni kombiyuutarada oo yacni casriga ah, waxyaabaha sameynaya mashiinadaas IoT waa yacni kuwaasoo sameynaya shay ay sameynayaan, ayagana saddexdaas loo qaybiyaa. Ciwaanka ku xiga waxa waaye IoT domains. IoT domains macnaheeda waxa waaye IoT categorieskeeda ama areaska IoT loo isticmaalo. Areaooyinka way badan yihiin IoT loo isticmaalo, smart cities ka mid ah. Marka waxaa ugu caansan agriculture-ka oo loo isticmaala IoT-ga si yacni dadka oo farmerska ah ay u helaan yacni sensaro datada real time u analyze gareynayo, yacni iyo inay la socdaan crop manufacture-ka ratekiisa. waxaa kaloo loo isticmaalaa energy ama tabarta, yacni waxaa loo yaqaano wind energy ama tamarta laga helo yacni dabeelaha ama solarinka xitaa waa loo isticmaalaa. waxaa kaloo loo isticmaalaa health care-ska, yacni qofkan blood pressure-kiisa intuu yacni uu yahay yacni xaddiga ay tahay waxyaabahaas, in yacni qofka caafimaadkiisa inuu maalin walba uu la socon karo. waxaa kaloo loo isticmaalaa transportationska ama meelaha yacni industrieska ay ka jiraan, waxyaabahan oo automatic robotska, waxyaabahaasna waa loo isticmaalaa. maxay xalisaa marka IoT? IoT waxyaabaha ay xaliso waxaa ka mid ah wearable technologies,
yani waxyaabahan aan isticmaalno lifestylekeena sida airpodska, smart watcheska. Waxay kaloo xalisaa IoT-da, smart home applicationska, inaad gurigaada maamuli karto, yani aad controli karto adigoo ka maqan. iftiinka, yani maxaan dhiraa IC-ga, waxyaabahaas. healthcareska, yani waxay sameysaa saacado yani ku sheegaya blood pressurekaada. waxay kaloo sameysaa smart cities sida trafficyo, yani waste management, security-ga sida CCTV-yada. waxay kaloo xalisaa agriculture-ka, industrieska. caqabadaha yani hortaagan maxay tahay IoT-da? caqabadaha hortaagan caqabadaha waxaa kamid ah security-ga. sheeyaashan waa lasoo attack gareyn karaa, waa vulnerable into cyber threats. waxaa kaloo kamid ah lack of strong regulation, yani ma jiro yani privacy ama data protection ma jiro oo standard ah. waxaa ka maqan yani security practice-ka ka maqan. availability skill talent, yani xirfadeeda, yani skillkan ayaa in la helo talent abo, yani compatibility iyo bandwidth iyo customer expectation. muhiimadda ay leedahay maxay tahay? waxaa yidhahdaa right choice technology. yani waxay u baahan tahay time and cost, ay u baahan tahay support, ay u baahan tahay mar walba qalabka in laga bedelo, integration ay u baahan tahay. waxay kaloo u baahan tahay business and innovation ay u baahan tahay. yani maxay ka kooban tahay architecturekeeda ama qaab dhismeedkeeda sewa? kow, waxay ka kooban tahay perception layer ama qalabadii laisku xirxira, actuatorkii, lightkii, boardkii, waxyaabihii sensorska u baahan. iyo maxaa yidhahdaa kuwii oo yani qaadayeen sida arduinaha iyo waxyaabahaas. waxaa kaloo u baahan tahay transport layer iyo application layer. transport layer waxaa waaye fiilooyinkan yani oo internet connectivity-ga leh, yani shay oo yani wireless leh, iyo applicationkii oo lagu xiraayay secular ahaan loogu xiraayay. intaasay ka kooban tahay. yani teknolojiyadda network protocolkeeda soo shaqeeya, wuxuu shaqeeyaa sida waxay isticmaashaa 7 layer protocol oo networkinka caan ku ah. waxay isticmaashaa physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer iyo application layer. layeradan macnaheeda yani way kala duwan yihiin. so muuqaalka intaas kusoo gabagabeynayna. haddii yani uu wax un kugu soo kordhiyay lawadaag asxaabtaada, janaalkana loo flow gareey, muuqaalkana like saar oo ku mahadsantaa daawashadaada.